bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa dhexe ee magaalada dhawaada warka duhurnimo ee SNTV aniga Umar Xasan Ali ayaa warkeedin la socodsiinaya qodobada hadduu alla idmo warkaad ku daawan doontaan waxa kamid ah taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgallo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay gacanta ku hayeen golaha wasiirada maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa kulankooda kaga hadlay arrimaha amniga iyo la dagaalanka kooxda argagixisada al-shabaab مسؤولين كتيرسان دولة قبلات كجلمدوج يجنعست الصومالية ده يوحى يجارين مجالات الدكاترة له هوبيو قبل كمدوج يجوا باقين مجالات هوبيو لما الجش هذا وده بدأ ورك عالم كداو ريال تلفزيون كقرن كصومالية وإذن هينا وحكم من السراكيش ميلتري دل كعراق أي شاعية إن إذن كميلتري عراق يسكت دياريين هول جلدي دجالدي وقبل لارنا ميليشيات كداعش الله حرين يو قيبك كميد أو بدن كعراق daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale ayaanu idinkugu haynaa warka duhurnimo ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo iminka si toos ah idinkaga imanaya xarunta dhexe TV-ga oo ku leeyahay magaalada Muqdisho goordhow diyaar garooba wararkaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan وهاجاك داوديال warkeena waxaanu ku bilaabaynaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen dagaal shalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose goobahaasi oo laga saaray maleeshiyaadka nabadiidka al-shabaab iyadoo howlgalladaasina wali ay soconayaan sida ay saraakiishu sheegeen haddaba afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Iimaan Caynte oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalladaasi iyo sida ciidanka xoogga dalka ay guulo uga gaareen waxaana afayeenka u yiri waxaan rabnaa inaan ka hadalno howlgalladii iyo guulihii ballaarnaa ay soo hooyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garabsanaya ciidanka Amisom ee nabad ilaalinta u jooga dalkeena haddaba waxaa ka mid ah guulaha iyo horumarada ay gaaraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada Amisom ee walaalaheena ee garabkeena ka jooga muddada dheer muddooyinkii ugu dambeeyay waxay gaareen guulo fara badan ay ka gaareen gobolooyinka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose intaba ugu dambeyntii muddo 24 saac laga joogay ilaa 48 saacadood waxay gacanta cadawga ka bixiyeen degmooyin ay kamid yihiin Bariire Sabiible iyo Caanole oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku jiraan degmooyinkaas hadda aan sheegay intaba gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna dhowrayaan inay ku wareejiyaan in ay yimaadaan ciidamadii amniga booliska nabad sugidda iyo maamulkii degmada waxaana arinta hawsheeda ku guda jiro dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe insha Allah guul ayay noqon doontaa waa la gaari doonaa sida loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ma halkii ay ku jeedeen wali way ku sii socon doonaan oo jihadii ay ugu talagaleen qorshaha dagaal wali ma dhamaan balse insha Allah waan la socon doonaa wixii guul soo gaaro dawladda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa oo ku farxad gelinaynaa in ay la shaqeeyaan dawladda iyo ciidankaba shacabka Soomaaliyeed haddii aad dawladda la shaqeysaan oo ciidanka la shaqeysaan waxaad gaari kartaan guul oo ummadda Soomaaliyeed oo dalka dhan ay wada gaari karaan haddaba shacabka waxa looga baahan yahay oo kaliya cadawga meelaha ay ku dhuumalaysanayaan cadawga aabba dhala hooya dhala walaal uu leeyahay waalid uu leeyahay meelaha ay ku dhuumalaysanaa ayaga ayaa si toos u sheegi karo haddii ciidanka ay la soo xiriiraan ay soo gaarsiiyaan cadawga waa laga qabanayaa meesha uu joogo dadkaasuna waxay heli doonaan insha Allah waxbarasho caafimaad nolol adduunyo wax badan in badana gacanta cadawga ay ku jiraan degmooyinkaas hadda aan soo sheegnay balse maanta way ka xoroobeen wayna gaari doonaan degmooyinka kale ee la midka ah inta gargaar ay haystaan ayaa gaari doona haddii Allah awood leh raali ka noqdo golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Baydhabo tan iyo markii dhawaan la magacaabay ayaa waxay kulankooda kaga hadleen arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab warkana waxa Baydhabo nooga soo diray wariyaheen halkaas nooga soo warama Siraaji Sheekh Isxaaq kulanka maanta yeesheen golaha wasiirada cusub ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ahaa kulankii ugu horeeyay yeesheen golaha wasiirada cusub ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed tan iyo intii la soo magacaabay ayaa waxa shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan
waxaana kulanka oo intiisa badan ahaa isbarasho ay sameynayaan golaha wasiirada cusub ee maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya diiradda lagu saarayay arrimaha amniga deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidii la iskaga kaashan lahaa. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ugu horeen u hambaliyay wasiirada cusub ee maamul goboleedka koonfur galbeed waxaana uu ka codsaday inay si wadajir ah u shaqeeyaan isla markaasina ay ku dadaalaan sidii loo horumarin lahaa deegaanada koonfur galbeed isla markaasina wasiir walba looga fadhiyo inuu ka soo baxo howshii loo igmaday. waxaana sidoo kale kulanka looga hadlay amniga deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidii la iskaga kaashan lahaa waxaana si gaar ah looga mahadnaqay ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo iska kaashanaya howlgalo ka dhan al-shabaab oo ay ka wadaan deegaano dhowr ah oo hoos yimaada koonfur galbeed Soomaaliya. madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isagu shir gudoominayay kulanka ayaa sidoo kale mahad gaar ah u soo jeediyay baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ansixiyay golaha wasiirada waxaana golaha wasiirada si aad ugu celceliyay inay ku dadaalaan sidii ay ugu soo bixi lahaayeen howlaha loo igmaday. kulanka markii uu soo gabagaboobay waxaa warfideenka la hadlay afayeenka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Nuruddin Yuusuf Abuukar. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta sida caadi ah waxaa la iskugu yimid shirkii golaha wasiirada xukuumadda koonfur galbeed Soomaaliya oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuuna ahaa kulan isbarasho ah waxaana lagu hadlayay arrimaha ammaanka sidii la iskaga kaashan lahaa ammaanka sugidiisa oo xoog loo saari lahaa sidoo kale waxaa looga hadlay sidii u dhici lahayd xil kala wareejin intii wasaaradihii la bedelay wasiirkooda kuwii meesha ka baxay kuwan xilalka la isku wareejiyay shaadinta lagu sameeyay inay isku wareejiyeen xilalkii kuwii hore u joogeen hore bay u joogeen marka inta baa looga hadlay kulanka waanu maasantihiin sida aad uga qayb qaadanaysaan ka warbaahin ahaan aad baa idinkaga mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi Siraaj Sheekh warbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo Jinaay. mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxay gaareen magaalada Dekedda leh Hobyo ee gobolka Mudug waxaanay ku baaqeen in la maalgashado magaalada Hobyo oo ka mid ah magaalooyinka taariikhiga ee Soomaaliya. warkana waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Maxamed Axmed. wafdigan uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Xasan Maxamed Warsame Xasan Guray oo isugu jiray mas'uuliyiin ganacsato iyo khubaro ajaanib oo ku xeeldheer arrimaha kalluumaysiga badaha ayaa waxaa soo dhaweyn kadib ay kormeer ku tageen xeebta degmada Hobyo si ay u soo qiimeeyaan xaaladda kalluumaysatada degmada Hobyo iyagoo dhanka kale qiimeyn ku sameynaya sida loo hagaajin karo marsada degmada Hobyo oo ay socdaan dadaalo la doonaya in dekedda Hobyo lagu dhiso. waxaa sidoo kale wafdigani ay u kurgaleen howlaha iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka jira degmada Hobyo iyagoona socod dheer ku dhex maray gudaha magaalada taas oo tusaale fiican u noqonaysa xaaladda ammaan ee degmada Hobyo oo haatan u muuqata mid la isku halayn karo isla markaana soo dadejin karta maalgashi dhanka ganacsiga ee lagu samaysto degmadaasi. kormeerkan kadib ayaa waxaa warbaahinta qaranka uga warbixiyay ujeedada socdaalkooda wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka Galmudug Xasan Maxamed Warsame. dadkii halkaas aan wada tagnay waxaa ka mid ahaa Chamber of Commerce-ga ama rugta ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliya rugta ganacsiga ee dowlad goboleedka Galmudug dad kaleeto oo ganacsato oo daneynaya inay maalgashadaan kalluumaysiga Galmudug iyo dad kaleeto ayaguna ajnabi ah oo expert oo ay ahayd in ay maaragtay naga caawiyaan sidii horumarintaas aanu niyadda ku hayno wax looga qaban lahaa oo hawlo badan looga geli lahaa. marka socdaalkanagii shalayto sidaas ku saabsanaa run ahaantii socdaalkaasi wuxuu ahaa socdaal lagu guulaystay ujeedadii laga lahaana laga gaaray. ujeedada laga lahaa ma ahayn shalay in maaragtay inta meesha wato kalluun la soo qabqabto laakiin waxay ahayd in la arko meesha in la arko ammaankeedu siduu yahay in la arko inay tahay meel hanti iyo lacag la gelin karo. runtii shalayto sidii la filayay ka fiican oo aad iyo aad uga si fiican buu ahaa. waxaa noo suuragalay inaan magaalada dhan dhex marno mararka qaarkood ama marar badan ba iyadoon waardiyo lahayn ayaa noo suuragashay inaan xeebaha tagno inaan duumaha aragno inaan kalluumaysatada aragno inaanu dadweynaha la kulanno.
mas-uuliyiinta maamulka degmada hobyo ay ugu horeeyaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi faad iyo maxamuud maxamed cawaale ayaa iyaguan sheegay in haatan degmada hobyo ay tahay meel ammaan ah ayna ku soo dhoweynayaan cid kasta oo soomaaliyeed oo doonaysa inay maalgashi ganacsi ku samaystaan degmada hobyo sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi intay joogeen sheegay inay ku dadaalayaan inay maalgashi ka samaystaan degmada hobyo xubnihii ka socday ganacsada soomaaliyeed cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Sweden ayaa magaalada Stockholm waxay ku yeesheen kulan looga hadlayay xoojinta dib u heshiisiinta iyo nabadda bulshada warkana waxa Stockholm nooga soo diray wariyaheena halkaas inooga soo warama Cabdiraxmaan Xudayfi kulan ballaaran oo isugu yimaadeen aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Sweden ayaa waxaa loogaga dhawaaqay madasha wada hadalka nabadeynta iyo iscafinta ummadda Soomaaliyeed daafurka madashan oo lagu qabtay magaalada Stockholm ayaa lagu soo bandhigay doodo la xiriira dhibaatooyinka gaar ahaan colaadaha soo noqnoqda sida loogu bedeli lahaa nabad waarta iyadoo loo marayo wada hadal iyo iscafin waxaana furitaanka doodan oo ay ka qayb galeen aqoonyahano kala duwan ay soo bandhigeen aragtiyo muhiim ah taas oo sahlaysa wadajirka iyo adkeynta dowladnimada ummadda Soomaaliyeed mudane maxamuud kulane ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa ujeedada ka dambeysay furitaanka madashan waxaan daafuraynaa madasheena wada hadalka oo la yiraahdo talo wadaag halkan waxay noo noqonaysaa gole aynu isku wareysano waxay noo noqonaysaa meel aynu debate ama doodo ku sameeyno waxay noo noqonaysaa gole ama madal aynu isku cafino maadaama Soomaali aynu nahay oo dhibaatooyin badan iyo wax kala gaargaareen inaynu iscafino markaan iscafino oo wada hadalno inaynu is aqbalno markaas kadibna waxaan gaaraynaa insha Allah taala inaynu istiiraanyo bixinta eray kale uma hayo laakiin waa in wixii dhacay oo laga wada hadlo marka nabad la'aanta ha ka eegina muxuu yaa xukunka haysta yaa xukunka waayay oo inta kale waxa kale top down dusha inaad ka muxuu laga eego nabad la'aanta ma aha aan eegno bottom down xagga hoose aan ka eegno waxa taala aqoon daro caafimaad la'aan aad iyo aad u weyn baa haysta bulshada gaar ahaan hadba inta deegaanku ka fog yahay hadba inta deegaanku muxuu durubsan yahay waxayna haysta muxuu nafaqa la'aan carruurteennii haddii marka in yaroo abaari timaado waxay xaaqaysaa dad badan labada aragti ee marka hadda la rabo in mataqaana hadayna soo sheegay ee dib-u-heshiisiinta la rabo ee la isleeyahay midkee la qaataa in hoos laga soo dhiso